asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhowaada saaxiibayaal, waxaan rajeynaa dhammaantiin mina caafimaad qabtiin. ku soo dhowaada taxanaheennii buuggeenii salaad baa idhaaftay. muuqaalkiina maanta waxaa igula wadaagi doonaa afka rasmiga ee looga hadlo dunida maalin un. waa marmarsiyaal aan ku xalaashano salaad la'aanta, waxaana ka mid ah shaqadeedu iima saamaxayso salaada subax. saacado badan ayaa shaqeeyaa, sidaa aaweed waa aan daalaa. haddii ay idhaafto salaad keliya, waxa aan dareemaa quus iyo qalbijab, mana tukado. dunida maalin un, waxa aan jeclaa in aan ka mid noqdo kuwa tukada. waxa kale oo aan ogsoonaa haddii aan tukado inay nolosheeda ka buuxsami doonaan liibaan, badhaadhe, barwaaqo iyo xasiloon. isla aragtidan waxa ila qabo dad badan oo aan tukan. qof ayaa iiga warramay waxa keliya ee noloshiisa la dhutinayso in uu yahay salaad la'aanta. mid kale ayaa ii sheegay waxa aan dareensanahay haddii aan tukanay inay ii hagaagi lahaayeen waxyaabo badan oo ka mid ah nolosheedu, laakiin ma tukanayo. waa arrin la yaab leh. waxa aynu dhaadannahay hilinka liibaanta iyo guusho, welina waxa aanu ku sii dhegannahay jidka mugdiga iyo moogaanta. maxaanu u tukan laanahay annaga oo maanka ku hayna salaadu in ay tahay isha keliya ee laga helo deganaan iyo raaxada? waa yaabay, maxaa sababay salaad la'aanteeda? dii sababaha igu kalifay salaad la'aanta aniga oo kor istaaga kuwa ugu mudan halka ay wax iska seegan yihiin. waa aniga oo ku dhex nool duni yar oo aan samaystay uguna magac daray maalin un. sidoo kale badi ma tukadayaashu isla dunidan ayay ku dhex nool yihiin. inta aynu ku dhex noolnahay dunida maalin un, waxa aynu sugnaaba amar ka imaanaya samada, kaasoo inoo horseedaya horumar nololeed. waxa aynu aaminsannahay xaaladeennu in ay isbeddeli doonto maalin un. sidoo kale aynu ka mid noqon doono kuwa tukada mar kasta ee ay hiifta nafteedu. waxa aan ku sabsabaa maalin un ayaa tukan doonaa salaada subax. waxaa imaan doona maalin aan 5 salaadood ku tukado masjidka. ramadaanta soo socota ayaan bilaabi doonaa salaadaha. maalin un ayaa hagaagi doontaa nolosheedu. maalin un, afka rasmiga ee looga hadla dunida maalin un, waa marmarsiyaal aan ku xalaashano salaad la'aanta, waxaana ka mid ah shaqadeedu iima saamaxayso salaada subax. saacado badan ayaa shaqeeyaa, sidaa aaweed waa aan daalaa. haddii ay idhaafto salaad keliya, waxa aan dareemaa quus iyo qalbijab, mana tukado. kuwa kale salaada kuma khushuuco, iyo boqolaal qiil kuwaasoo iga dheeraynaya salaadaha ayaan ka maaweeliyaa nafteedu bas. waxaa jira marmarsiyaal kale oo aan u raadiyay sababta dadka qaar u ilaaliyaan salaadaha. nafteedu waxa iigu sheekaysaa dadkan si gaar ayaa loo abuuray, eebbana waxa uu siiyey awood dheeri ah. anigani maalin maalmaha ka mid ah ayuu isiin doonaa awooddan oo kale. sidooda oo kalena waa aan noqon doonaa insha allah. sida badan waxa aan ahaa qof iska takoora kooxda tukata, kaas oo aaminsan in iyagu u fudud yihiin salaaduhu, sidoo kalena ayna tukadaan oo aanan bixinin haba yaraatee wax dadaal ah. aniga miyaa si aan u tukado salaadaha waxaa la iiga baahan yahay wax iska caabin xooggan iyo dadaal dheeri ah. had iyo habeen wax aan ku maaweelin jiray maalin uu xaalka hagaagayo ee aan ka mid noqonayo kooxdan barakaysan ee ilaalisa salaadaha. laakiin maalinkii weli ma imaanin, waana sugayaa. dheer ayaan ku dhex jibaaxaya dunida maalin un. ugu dambayntii waxaan isweydiiyey, salaadu waa waxa ugu horeeya ee lanaga xisaabinayo maalinta qiyaamaha. ilaalinteedu haddii ay tahay waa sida aynu u malaynayno amar xagga alle subxaanahu watacaala ka imaaday oo uu siiyo cidda uu calmado, una diido cidda uu ceedhiyo, maxay ugu dhalanayaan abaalmarinta iyo ciqaabtu? dadka tukada haddii ay helaan taageero rabbaani ah, annagu maxaynu u faramarannahay? ugu dambayntii waxaan garwaaqsaday maalin un in uu weliga imaanaynin. haddii uu aan sugo in ay hagaagaysa nolosheeda ee aan ilaaliyo salaadaha, dhab ahaantii geeridii ayaa haleelaysa aniga oo weli taagan. da'deeduna waxa ay idaalinaysaa aniga oo aan tukan waxaan ka ahayn ragcado kooban. haddii aan doonaya inaan ku biiro kuwa ilaaliya salaadaha, ugu horeyn waa inaan ka xoroobaa dunida maalin un. sidoo kale in aanan sugin maalin aan weligii imaanaynin. halkii aan dhowri lahaan waa in aan anagu abuurtaa gacmahayga maalintaas. waxaanu ku burburiyey arrinkan in uu aad u culus yahay bilowga hore, islamarkaana bilowga halganka iyo horumarka ay yihiin maskaxda lagu xoreeyo fikradaha maalin un. sidoo kale waa inaynu rumaynaa guusha inay ku jirto gacmaheena. wakhtiga aynu ku dhex jirno riyada maalin un
waxa aynu haynaa hilinka hooga halaaga iyo habowga, waxa aynu dhex jibaaxaynaa badweynta marmarsiyaasha ee aan dhammaadka lahayn. maanka ku hay dani inooguma jirto tubtan silan ee waddada qodxaha ah, taas oo aynu weli sii hayno. dunida maalin un waa bilowga qaadista jidka ilaalinta salaadaha iyo ku raaxaysiga nolol qurxoon ee ay ka buuxaan fikrado, rajo iyo xasiloon joogto ah. halkii aynu kaga mashquuli lahayn abuuridda qiilal si aynu u tukano salaada, waxaa habboon in aynu waqti ku bixino sidii aynu u samaysan lahayn arrimo inagu kaalmaynayo ilaalinta salaadaha. qodobkiisana waa ujeedda loo qoray dhiganaha. dad badan ayaa rumaysan danla'aanta iyo meel isku yiirka in ay lagu helo raaxo iyo reereen, sidaa darteed ayay salaad la'aantu ugu doorbidaan salaada, iyagu oo maanka ku haya salaad la'aantu in ay soo keenayso raaxo, ilaa ay gaadheen heer ay la qabsadeen iska fadhiga. dhabtu waxa ay tahay dadaalka nafeed ee lagu bixiyo salaad la'aanta ayaa u dhigma ama siigaya inuu ku bato kan loogu bixisho. gudashada salaaduhu waxa ay soo hoos gashaa waxyaabaha nafta u soo jiido liibaanta iyo badhaadha, halka salaad la'aantu qofka u keento cidhiidhi iyo isyasid. naftu aynu ku taageerno kudhex jirka dunida maalin un, taas oo aan kala irdhaysay innaga iyo salaadaha ka dhexli mayno waxa aanu ahayn dib u dhac iyo khasaare nololeed oo wada jiro. weli ma aragtay duqsi ku dhex xaniban qol mugdi ah? waa suuragal inaad aragtay duqsi qaatiga ka taagan ku dhex nagaashaha qol madow ah ama mugdi ah, kaas oo sidoo kalena leh awooddiisa xoogan ku dhiirigelinayso inuu u baxo iftiinka. nasiixumo hadba daaqad ayuu isku qaadayaa, isaga oo la dhacaya baalashiisa muraayadaha. marmarka ka dambeyso waxa uu sii laba jibaarayaa dadaalkiisa. waxaa dhici karta inuu sida ku sii socdo saacado badan isaga oo aan weli gaadhin wax guul ah. waxa kale oo suuragal ah noloshiisa oo dhan inay ku dhammaysato xaaladan. ugu dambayntii awooddu yeelan mayno in aynu baxno iftiinka, waayo waxa uu hayaa jidka qaldan. haa, dhab ahaantii waxaa dhibsanaysaa xaaladaha uu ku jiro, sidoo kale waxa uu haystaa awood ku riixaysa inuu u baxo iftiinka, balse waxa uu hayaa jid qaldan. innagu halinka oo kale ayaynu haynaa. duqsiga ah aniga iyo adiga awoodi mayno ilaalinta salaadaha inta aynu hayno dhabaha maalin un. sidoo kalena aynu samaysano marmarsiyaal aan dhammaad lahayn ah. boqolaal jeer kale ayaad samaysay falalkaaga adkaa gudashada salaadaha, waxaana dareemaysay daal maskaxeed iyo mid jireed oo daran. odaygan duqa ah ee sanka saaraysa da'diisa 80 ma haysta awood gaar ah, iska dhaafee inuu haysto waxa uu ku jira xaalad jireed iyo mid maskaxeed oo boqolaal jeer ka hooseyso. kuweynana hadda kama tagto salaada subax. ninkan sanadaha badan ilaalinaya salaada subax waxa uu seexdaa saacado ka yar kuwa aynu seexano, haddana ma dhaafto salaadu. sidaa awgeed ma jiraan marmarsiyaal dheeri ah. garwaqsiga bilowga guushu waa garwaqsiga inaad ilaalin karto salaadaha si kasta ay kugu adag yihiin duruufo, iyo sidoo kale inaad aaminto kuwa salaadaha ilaaliya in ay haystaan awoodo dheeri ah. dhiganahan waxaad ku baran doontaa kooxda iskugu jiro xirfado iyo siro aanu soo ururiyey amintii aan sheeko wadaagga la ahaa dadka ilaaliya salaadaha. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka tuugayaa inuu kugu daro kooxdan